dhalooyinkaas aragtaan dhalada koowaad ee midigta xigta waxaa ku qoran body, tan labaad mind, tan saddexaadna spiritual. qofka saddexdaan ka kooban yahay. inta usoo qaato wax kale ma aha, waxaan rabaa qof kasto idinka ka mid ah waxaad ogaataan noloshaada 24 saac kasta oo kusoo marto waxaad buuxinaysaa saddexdaan dhalo mid ka mid ah. ficil kasta oo aad samaysid saddexdaan dhalo mid ka mid ah buuxinaysaa. bodygan ku hormaraya. bodyga waxaan dhahnay in laga shaqeeyo ko physically la dhiso, exercise iyo jimicsiga inaad samaysid markasto ama orod ama jimicsi ama exercise nooc kamid ah samaynaysid waxaad dhisaysaa body. qofka saddexdaan ka kooban yahay bodyga dhisaysaa, waxaad dhisaysaa jirkaada dhisaysaa. hurdada markaa seexato sidoo kale jirkaada qayb bay ka tahay qaadanaysaa. cuntooyinka aad cunayso qayb bay jirkaada ka tahay. so waxaan rabaa inaad noloshiina inta ka dhiman xasuusataan saddexdaan daqiiqad kasta waxaad tidhaahdaa midee baan buuxinayaa. haddaan buuxinay ma dhinac fiican u buuxinay mise dhinac xun. okay imisaa subaxda soo kacdo maalintii iska joogto, habeenkii iska seexad, subax soo kacdo maalintii iska joogto iyagoon waxba cilmi cusub baranin, jimicsi samaynin, cuntooyinkooda ka fikirin, macnaha noloshoodan wax ka bedelin. ha noqonin sidaas. noqon qof 4 saac ku xisaabtama jirkaaga maanta jirkayga maxaan ku kordhinayaa si jirkayga uu ii haayo inta aan noolahay cimrigayga jiro, uusan u kala daadaadanin, uusan u noqonin wax maxay ahaday jirano cudurro keensado tight ah ee caafimaad qaba sida ku noqon kara. 2 mind waxaan soo qaadanay qaybtii labaad ee qofka ka kooban waa maskaxdii, waa intellectualkii ama intelligencegii. waa meesha mashiinta qofka laga hago ee u baahan yahay qofka in uu buuxiyo cilmi ka buuxiyo, diin ka buuxiyo, akhlaaq ka buuxiyo, waqti qorshe iyo gool ka buuxiyo. waxaa loogaga baahan maskaxda qaybtan inaad buuxiso iyo spiritual oo ah qaybtii ruuxda ee qofka uu u baahan yahay in laga buuxiyo. dhammaantood waa soo baranay. spiritual waxaan dhahnay waxaa lagu kordhinayaa diinta, akhlaaqtaada, aadaabtaada, cilmigaada lagu kordhinaya. so haddii qofka intaan wuxuu gelinayo uu kontaroolo, uu u qorsheeyo, ay u qodansan yihiin, uu kobcayaa. maxaa dhahan halkaa waxaa noogu qoran brown dying. haddii aadan intaana ka warqabin, aadan kobcinayn, waxaad noqonaysaa qof iska noolo, iska socdo oo dhimanaayo, maskaxiyan dhimanaayo, jir ahaan dhimanaayo, na ruuxi ahaan iska dhimanaa noqonaysaa. haddii aad kobcisan waxaad noqonaysaa qof green ah ee kobcaya ee garoow. marka waxaa la yidhahdaa laba unbaad mid tahay. inaad tahay brown midabka la yidhaahdo oo ah inaad tahay qof maskaxiyan sii dhimanaayo, iska nool laakiin aan nolol fiican ku nooleen. waxaa la yidhahdaa dadka caalamka 35% iyaga oo 20 jira ayay dhintaan, iyaga oo 60 jiro ama 70 jiro ay qabriga la geeyaa. waxaa laga wadaa macnaha qofka dhintay oo socdo waxa weeyaan qof aanan waqtiga u xisaabsaneen, qof aanan ka walwalayn caafimaadkiisa, qof aan cuntooyinka iska saxin, qof aan hurdada iska saxin, qof aanan wax baranaynin, qof aan cilmi korsanaynin, iska socdo. dee qof dhintaa tahay waa iska socotaa, qolofkii baa nool laakiin maskaxiyan waa dhimat, ruuxiyan waa dhimat. so laba midun baa tahay inaad tahay growing qof kobcaya, subax kasta wax cusub baranayo, subax kasta subax isaga uu leeyahay gacanta ku haysa u baryayso farxadda, horumarka, dadaalka, wax qoro, jadwal samayso, waqtigaada qiimee. inaad tahay qofkaasi waa growing. so marka dhalooyinkan waxaan rabaa hadda kadib noloshiina inay idin noqoto 10 oo aad tidhaahdid talow hadda daqiiqadaasi dhaladeen wax ku shubaya. haddaa huradid dhaladeed wax ku shubaysaa, haddaa socotid dhaladeed wax ku shubaysaa, cuntada hadda cunaysa dhaladeed wax ku shubanaysaa, teed wax ku kuwadsanaysaa inaad ogaato. waxaan kasoo laabta dhalooyinka. waxaan rabaa buugag aan idinkula talinaa inaad akhrisaan. books that I recommended you to read. buugta inaad akhrisaan idinkula talinaa. kow buugagta ku saabsan goal setting books inaad akhrisaan. cashirkeena ugu horreeya buugagtana waa idin tusi doonaa. 2 purpose books, buugagta ku saabsan in riyadaadii, talentigaada aad soo saartid ee kaa caawin karo. waxaa laga Soomaali inaad ku heshaan, Englishna waad ku heli kartaa. spiritual books, buugagta ruuxdaada dhisay, maskaxdaada kobcinay, akhlaaqdaada wanaajinay inaad akhrisatid. ogow mar kasta ee aad akhrista noqotid waad kobcaysaa. akhriska waxa uu kobciyaa caqliga, maskaxda iyo jirka ayuu kobciyaa. 3 intellectual being books, buugagta lagu kobciyo maskaxda, qaybta maskaxda ah. horta waxay ahayd tan waa maskaxda. emotionally well-being, buugagta lagu kordhiyo emotionkaada ama dareemaha waa kasoo hadalnay. stresskii wixii dhanaa ku jiro. stress
reducing books buugagta dejiyo stresska ama qofka uu ku maareeyo xaaladihiisa gudaha ah banaankiisa marka laga soo tago. Foods and nutrition books buugagta cuntooyinka iyo nutritionka ah. Fitness and healthy books buugagta jimicsiga iyo caafimaadka. Wealthy and money books buugagta khaniga ama qofka uu ku hodmo dhaqaale markay noqoto iyo lacagta. buugagta ugu horeeya labadan buug haddii aad heli karto please dalbo akhri xitaa haddaad ingilishka aqoonin ingilishkaad ku baranaysaa. buugga koowaad waxaa la yidhaahdaa goals waxaa qoray Brian Tracy macalinkeyga maasha allah macalinkan wax badan ayaan ka bartay. wuxuu qoray 88 buug u qoray 80 buuga u qoray waan akhriyey 8 ii dhiman oo buugtiis ka mid ah. si gaar ah ayaan sanadii ugu dambeeyay buugtiis aan jadwal uga dhiganayo oo akhrinayo. ma haddii aan u duceeyo laga yaabo inaan laga aqbalin waa nin gaal ah laakiin rajayna inuu soo muslimo laakiin waa qof bini aadam ah waa nin wanaagsan qof bini aadam intuu fiican yahay fiican buugagta qora buug kasta buug kale ka dareeya laakiin buuggan dadka cusub ayuu u fiican yahay ee call setting ka sameynaya. waad fiirin kartaan dad badan oo Soomaali akhri I think so in af Soomaali lagu helaa soo la turjumo laga yaaba waa rajaynaya laakiin buugga labaad ee idin diray waxaa la yiraahdaa medical morning isagana waa goal setting iyo wuxuu isku qaadanaya purpose setting inaad hadafkaada heshid qofka aad tahay inaad heshid talentigaada inaad heshid ay isku qaadanaya. waxaa qore Paul Elro waa nin Mareykan ah isagana nin aad u wanaagsan runtii aan la dhihi karin keli waa in wada isku diin ahayn laakiin waa u duceyn lahaa. buuggan inaba caadi maaha noloshaada wax badan ka bedeli doona. labadan buug haddaad akhrisid ma u baahneed inaad ka walwashid qorshe inaad samaysatid iyo yoolal inaad samaysatid waxaad noqon doontaa qof highway saaran ee og highwaygaas meesha u kaga degay. Spiritually and positive mindset. Spiritually markaan ka hadlayno ruuxda iyo wanaag aragga qofka inuu wanaag arag noqdo qofta inuu ruuxdiisa barbaariyo buuga kaa caawinayo oo islaamic buugka dadka ingiriiska yaqaano. buuggan waxaa la yidhaahdaa the productive muslim. buuggan haddaa akhrisid noloshaada wax badan ayuu ka bedeli doonaa. waxyaalan cashirada aan soo qaadano badankooda asaan kasoo diyaari. waa buug waxaa qoray maxamed faris nin islaam ha qoray sunni ah laakiin noloshaa wuu bedeli doonaa buuggan markaad akhrisid. haddii aad degan tahay wadamada Yurub waxaa ka dalban kartaa Amazon. haddii Kenya aad degan tahay bookshopyada ka helaysaa laakiin Soomaali ma hubo. buuggan haddaad akhrisid cashirka xalo baad qaadatay waxba kuma harin. okay buugga labaad waxaa la yidhaahdaa the muslim mindset waxaa qoray Zakiya Khaliil ayaa qoray. buuggan asagana waa amazing markay noqoto diini ahaan iyo maadi ahaanba cashirada aan soo qaadanay basically isagay ku dhisan yihiin. soo labadan buug haddaad akhrisid noloshaada way isbedeli doontaa wax badan ay haddaad ogeyn waad baran doontaa. waxaan rajaynaa inaad akhrisaan dadka ingiriishka yaqaano. I think so in carabi asoo loo turjumo waa la helaya labadan buug laakiin ingiriishka ku qoran af Soomaali kuma helaysid. haddaa akhrisaan noloshiin wax badan ay ka bedeli doonaan. inaan aniga idinku daaliyo ma fiicin inaad idinka tiskiina oga dhintiin ayaan rajaynaa insha allah.